waxaa xirmay qaar ka mid ah wadooyinka halbowlaha u ah magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose kadib 21 saacadood oo roobab miigaan ah ay ka da'ayeen magaalada Kismaayo iyadoona uu hakad galay isku socodka gaadiidka iyo dadka kala gooshayay magaalada Kismaayo iyo deegaanada ku xiran haddaba dhibicda roobka daadadkii ka dhashay waxa ay saameyn ku yeesheen qaar ka mid ah dadka danyarta ee ku nool magaalada Kismaayo iyadoona ay burburiyeen guriyihii cooshadaha ka sameysnaa ee deganaayeen dadka danyarta TV-ga Honkebel oo arintaasi u kuurgalay ayaa waxa wareysi la yeelanay qaar ka mid ah dadka danyarta waxayna cabirayaan dareenkooda roobkii ka da'ay ee magaalada Kismaayo saameyn intee leeg ayay ku yeesheen kaamkiina aan horta Khadiij Abdullaahi Suuliide kaamana moofi ku nool gadoomiyay haajo Muqtaar waay daadana qaad ano dhaqaal jirma in ku kooy ilmahay oo guriga biyo umbuysumi biyo markii aan kooy ilmahay wal aan ka bilaawo mal raashin gooyo ambay ilmihiiba dhimado aan basan ka daariid guriga lama marta abinin ka seeti mana dhur korna matoor ma qabno baahanna ana rafaadsanna guriga kor i hoos gudahana iska gale korna ka da'e wal una hadda haysana male oo taa kuleena aan baahanna walaalayaal ajari ahsanaad Allah siinka siyo maamulka Jabbaland iyo ganacsatada may codsadaan ina wal nin qabadan daadkan qaaday kor i hoos guriga da'oy ina wal nin ka qabadan ku codsadaan wallahi duruufyo badan iska jira dadka danyarta aad bay u duruufaysan yihiin dhamaantood roob baa Ilaahay noo keeno nimca Ilaahay na siiyay laakiin dadka danyarta baahi iyo qutulyoon laan ayadoo markii hore ay haysatay oo wax shaqo la'aan magaalada ay ka jirtay duruufyo badan baa iska jira wax badan oo loo baahan yahay dadka masaakiinta in lagu garab qabtaa iska jira dhaqaaqyo badan baa imaada wadanka hay'adaha joogo ganacsatada joogta inta waxaan u maleynayaa in dadka fiirsadaan masaakiinta aysan wax dana aysan ka gelin nin walba dhaqdhacsi gurigiisa la fadhiya dadna qutulyoonkii bay laayihiin oo waxay cunaan qutul daruuriqi meel ay ka helaan bay laayihiin dadku gaar gacanlayaal iyo karatiyaal iyo dadba tunkooda ku noolaayaan waxaad moodaa run ahaantii in aad iyo aad arintaas loo iskugu fiirsanayo xilli dhibicda roobka daadadkii ka dhashay ay fariisteen wadooyinka waaweyn ee magaalada Kismaayo hadda waa sidee fariinta ay dirayaan saraakiisha caafimaadka ee ka howlgala magaalada Kismaayo roobkan runtii dhibaatooyin badan bay geysteen marka laga soo tago dhibaatooyinka infrastructure-ka ee wadooyinkii iyo ganacsigii ay u geysteen iyo guryihii qaarkood dadka barakacayaasha ee masaakiinta oo laga yaabo inay dumiyeen marka laga soo tago dhibaato caafimaad oo aad iyo aad u daran ay keenayaan biyaha wadooyinka fadhiya xaafadaha hortooda fadhiya bulaacadaha leh ee meelaha qaarkood fadhiya waxaana ugu badan waxyaabaha inta badan ay keenaan xanuunada lagu magacaabo waterborne disease-ka ama xanuunada inta badan biyaha ka dhasha communicable disease na waa la xanuunada inta badan faafa ama infectious disease xanuunadaas oo dhan marka waa waxyaabo biyaha ka dhasha waay anaga waa sahlanaynaayo ciyaalkii maanta oo dhan biyihii ku ciyaarayaan lagu halagalayaan qaarkood inay xataa cabaan baa laga yaabaa biyihii biyo wasaqaysan waaye stagnant water biyaha fadhiya meel walba xanuunka ugu culus ama aslana sida ugu fudud hadana uu dhibaato u geysan kara waa koleeraha waaye ama daacuun caloolaadka ay dhahaan xanuunkaas runtii dhibaatooyinka uu leeyahay waa wada ognahay anagoo dhan si fudud uu ku faafaa hal ilmo ama hal qof yar oo bini aadan ah oo xanuunkaas uu gaaray bakteeriyadaas ay gaartay ayaa dhibaato badan geysan karta oo bulshadii oo dhan ay la daala dhici karaan waxyaabaha ugu daran dadka ugu daran oo waliba ugu liit waxa kamid ah dadka barakacayaasha oo ognahay oo wax badan caafimaadkooda aan fiirinay laakiin qofkan waa qof barakacay noloshii oo dhan baa liidata gurigiisii dumay qof waxa ay quutulyoom raadinaya maanta ma ka fakaraay biyahan iyo dhibaatada ay geysan karaan marka dadkaana in wasaaradda caafimaadku iyo cid kasta oo xal qaban karta in dadkaas waxa waay mudnaanta koobaad la siiyo si looga hortago sababtoo ah dhibaato barakacayaasha gaarta magaalada oo dhan bay gaaraysaa ay saameyn ku yeelanaysaa xanuun halka ka dilaaca meel walba uu gaaraya marka in dadka Soomaaliyeed dhamaantood waxa waay si siman loogu shaqeeyo oo cid walba mas'uuliyad saaran tahayna arinta ay mas'uuliyadda qaadataan aad ugu boorinayna cabdiqadar iimaan dhaqane wararka telefishinka caalamiga ee Honkebel magaalada Kismaayo